banaanbax lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha Soomaaliya uu ku aqbalay in mudnaanta koobaad la siiyo gobolka Banaadir ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. banaanbaxan oo saaka oo dhan ka soconaya qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho hadda waxa uu soo gaaray taalada daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho. waxaa banaanbaxa ku soo biiray oo soo galay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Muqdisho. banaanbaxan ayaa waxa uu yahay mid lagu dalbanayo in maqaamka caasimadda magaalada Muqdisho si rasmi ah loogu daro aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. shacabka qaybihiisa kala duwan ayaa isugu soo baxay magaalada waxaana madaxda iyo shacabkaba waxaan soo kasnabay gaxsanaynaa inaad xoolaha dib u degtaan qaybtatan inkoo aad u mahadsan halkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadda ku soo biiray Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. banaanbaxa ayaa soo gaaray taalada daljirka Daahsoon kumanaan qof oo shacabka magaalada Muqdisho ayaa ka qayb galaya waxaana uu yahay banaanbax lagu dalbanayo maqaamka magaalada Muqdisho. basma Axmed Caamir Jaketi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee banaanbaxa ka soo qayb galay oo hadda taalada daljirka Daahsoon ay tahay meesha barkulanka u ah banaanbaxa ka soconaya magaalada ee maqaamka caasimadda lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha Soomaaliya. marwa basma telefishinka Universal ku soo dhaw أنا إلي سلامة يا دمان سلامة يا بشر magaalada Muqdisho maanta marana ma saarno hadaan reer Muqdisho maanta ku kala harmeeyo waxaan u hadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya codsigii oo jeediyay baarlamaanka inay hesho magaalada Muqdisho iyo mudnaanta ay lahayd. Muqdisho way sawartay Muqdisho maanta maalinteeda ay u taagan tahay madaxweynihii ugu horeeyay ama khayraad Muqdisho inay helaan matalaad inay helaan madaxweyne waa kaaga mahadcelinaynaa baaqaagii labada baarlamaan waxaan ka codsanaynaa inaysan diidi doonin ee ogolaan doonaan sababtoo reer Muqdisho 3 milyan way ka badan yihiin waxaan rabnaa laakiin in la yiraahdo 4.5 aan ugu qaybsanaa waxaan ogolaanayna maaha. Banaadir waa la yaqaanaa dadka dega Banaadir dadka dega ama dadka ku nool waa la yaqaanaa matalaadda aan lahayn in la siiyo mudnaanta ugu horeyso inta dadka Banaadir nala degtana ma diidani waa soo dhawaynaynaa laakiin reer Banaadir ayaa iskale mudnaanta reer Banaadir waa in la siiyaa mudnaanta. waa mahadsantihiin madaxweyne aadan kaaga mahadcelinaynaa madaxweyne sharaftiisa ayaa ku hayaan bulshadaada reer Banaadir aad u jeedid maanta inay u baahi qabeen kelmadii aad sala deeysay baahida badnaa aan u qabnay waa kaaga taageeraynaa adoo ku dhalatay magaalada Muqdisho adoo ku farbaartay magaalada Muqdisho adoo wax badan ka soo qabatay maanta aad matalaysa bulshada Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan madaxweyne guuleyso horumar wanaagsan ayaa ku rajaynaynaa madaxweyne mar walbaba garabkaaga iyo taagan reer Muqdisho iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan خير والله يدير رجينا لبدا بارلمان باقي مدحوينها جديد مدحوينها عكيس وذكرياته مدحوينها وين basma Caamir Jaketi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir haddana waxa ay la jooga gudoomiyaha maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Imaan mudane halkan ayaa joogta banaanbaxa maqaamka Muqdisho lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha telefishinka Universal ayaa si toos ah lagaga daawanaya gaar ahaan page-ka Facebook-ga. maalin wanaagsan marka hore maalin wanaagsan aad iyo aad idinku salaam maanta waa maalin weyn oo maalin taariikhiya waa maalin shacabka Muqdisho u mahad celinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda kadib shalay markii uu ka codsaday baarlamaanka labada gole in maqaamka magaalada Muqdisho ay tixgeliyaan waxa ay mudantahan ay siiyaan arrintaas ayaa dadka isku abaabuleen waxaan leenahay madaxweyne mahadsanid وقان جيسنمنا ومن كرسي الماسية قدومي كحجانك مامولك يمالية قبل كبنادر أيوها إلى هاللي تلفزيون يونيفرسال محمد عبد الله تولح قدومي كحجانك أمني سياسة قبل كبنادر ويسنا كم إذا مسؤولين قبل كبنادر بنابحنا كسوق قبل يا مركنا إلى الجوجا مدن تولح مالي ونكسن بل بنابحن شعب كمان تصوب حي محويان. أوكي هذا ما صنعي
banaanbaxa ku saabsan yahay in laga mahadceliyo ujeedinta shalay dadka magaalada ugu horeysay Soomaaliyeed ka hadlo magaalada xaaladda duwan ee soo martay maanta dadka laga mahadceliyo baarlamaanka دورك مليان حقوق كله دولته iyo siyaasadda dadka intaas ugu muhiimsan banaanbaxa aad iyo sida arkaysan 17 degmo hadda waxaan ka afar ayaduna ay qaybta wali wacad ay joogtay halkaan hadda qaybtii bartamaha iyo bari la isugu keenay dhalinyaro u badan iyo haween kulli waa la wada badan yahay meesha wada qayb kale sida arkaysan aad buu maasiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa markana waxa ay jooga gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir mudane Cumar oo asna soo gaaray banaanbaxa ka soconaya taalada Daljirka Daasoon lagaga hadlayo maqaamka magaalada Muqdisho laguna taageeray go'aanka madaxweynaha ee maqaamka Xamar gudoomiye soo dhawo ma sha Allah waa maasantahay waa dhawahay waxaan ka soo qayb galnay banaanbaxa waxaan soo gaarnay dadka annagoo maaragtay taageerayno codsigii madaxweynaha ee ahaa in la helo in matalaad rasmi ah loo helo magaalada Muqdisho shacabku waxaan leenahay soo bixin waa ku maasantihiin soo dhawaada thank you aad u maasan yahay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa oo telefishinka Universal la hadlayay waxaan idin soo tabinaynaa banaanbaxa lagu dalbanayo maqaamka magaalada in markaasi banaanbaxan uu yahay mid lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aqbalay in gobolka Banaadir matalaadiisa laga siiyo ama lagu muujiyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dadkan waa shacabka magaalada Muqdisho oo hadda isugu yimid taalada Daljirka Daasoon waxaana banaanbaxan ka qayb galaya gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa waxa banaanbaxan uu yahay mid si nabdoon maanta magaalada ugu qabsoomay isla markaana 17 degmo ee Muqdisho saddex goobood oo waaweyn oo magaalada Muqdisho isugu soo baxeen hadda banaanbaxa waxa uu ku soo idlaanayaa taalada Daljirka Daasoon isagoona saaka ka soo bilowday qaybaha badan ee magaalada Muqdisho ay ka kooban tahay ee degmooyinka magaalada waxaana banaanbaxan uu yahay mid lagu taageerayo go'aanka iyo hadalka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hadda waxaan ku sugannahay taalada Daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho banaanbaxan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu ballaarnaa ee lagu taageero go'aanka madaxweynaha ee isla markaana lagu dalbanayay in markaasi golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya laga siiyo matalaadii ay ku lahaayeen gobolka Banaadir anigoo Cabdi Sokaya tabintan tooska idin wada waxaan idinkaga soo tabinayaa taalada Daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho telefishinka Universal ayaa nagala socotaan waxaa dadweynaha la hadlaya agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir Mukhtaar Dhagacade waxaan codsanaynaa inaad raali ka ahaataan oo dhexda fanaysaan hadda waxaan ugu soo biiray bambeynta maanta muusiko ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ayaguna ka qayb galaya xamlada tanqiimaha leh ee shacabka gobolka Banaadir u soo banaanbaxay oo uu ku taageerayo codkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ahaa Muqdisho inay hesho matalaadda ay xaqa u leedahay madaxweyne maasay waa kugu taageeraynaa garabkaagaan nahay xamar way mudneed bulshada asaageeda waxay qabtay ee la yeelato sidoo kale waxay mudneeday inaad kelimadda ku dhawaaqdo waa kaaga mahad celinaynaa madaxweyne xuduudmaada ayaa ku duwan caasimadda dalka wayna ogtahay caasimaddu wayna ku xusuusanaysaa sidoo kaleeto madaxweynihii ugu horreeyey ee ka hadlay arrintaas ayada ayaa tahay soo dhawow madaxweyne ku jeeraad mahadsan tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa waa naga mid annagay naga mid yihiin gobolka Banaadir ay ka mid yihiin caasimadday ka mid yihiin ayaguna inay sidaas oo kaleeto madaxweynuhu ugu dhawaaqay u hambalyayn doonaan uu soo dhaweyn doonaan kasoo qaybgalkiina waa ku saabsantay banaanbaxan waxaa lagu taageerayaa go'aanka madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markaasi ku dalbaday in la muujiyo maqaamka gobolka Banaadir hadda banaanbaxa waxaa ku soo biiray oo durbaanadooda iyo qalabka ay tumayaan soo galay kooxda banda music ee ciidanka booliiska Soomaaliya oo garaacaya astaamahooda
wagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan telefishinka Universal dibadbaxan ka soconaya taalada daljirka Daahsoon ayaana si toos ah idinkugu soo tabinaynaa waxaadna markaasi ay tahay banaanbax lagu dalbanayo in la muujiyo maqaamka magaalada Muqdisho laguna taageero go'aanka madaxweynaha Soomaaliya uu ku dalbaday in matalaad ay aqalka sare ay ku yeelato magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka Banaadir wagaag telefishinka Universal ayaa la socotaan agaasimaha waaxda caafimaadka dawladda hoose ee gobolka Banaadir Maxamed Cadow ayaa ila jooga oo ka mid ah maanta dhalinyarada magaalada Muqdisho ee banaanbaxan ka qayb galaya agaasima Cadow waan wanaagsan waxaan u mahadcelinayaa Universal TV iyo baada hormarinta maanta waxaan isku soo baxnay inaan muujino shucuurka reer Muqdisho ayagoo soo dhaweynaya baaqi madaxweynaha ahaa inay yeelato Muqdisho مقام قونية هي مثلات قونية أريدها سأوصل التاجلي شعبنا وصوت بعين وحنا ديار ونها إن شاء الله يا جماعة عافماتك عدوا أيوة كاس دولة هوسة قبل بنادر gobolka ayaa banaanbax ku soo biiray mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dibadbaxa ku soo biiray كابتن حلال وسلان سيني قدوميها قولك بنادر يقاسها فاقاك داوديال ستة وسط تلفزيون يونيفرسال أيا نقل سعطان بنانبحة كسعونية تالا درديرك داسون أيا نديسو تبينينا دوقة مقالة مقدشان قدوميها قولك بنادر مدن عمر محمود محمد أيا هدا سو بيري أو بنانبحياش الله حل دونا banaanbaxan oo lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa banaanbaxani uu yahay mid lagu taageerayo Bismillahir Rahmanir Rahiim Zakariya kowlaba وعجاك بينها أيوة أول ما تصل عكوا ثانية عمر نعيش كراسي في الشدة يوم بيجي قبل تسوقها بيجي قبل في الشدة على سبيلها صلنا ينعيوا أمسك كذا يقال ما تصل أنا حلنا وقاستي ينعيوا كيف أصبح في عندنا هذا وكل صار مكان كلام
fadlan codsi saxaafadda وهاجاك داوديال دبنا بحا أيا مركز صعنية هلكا واحد تاجن قدومية دليرة كمان كبنادر عبد الكافي محمد مكران قدوميها دقمة الشبس قدومية شكل دقوي كمان كبنادر أيا شبكة بنا وكسعنية تعالى درجة كداسون مجال مقدشو بنا بحا وامد لقو تاجر يجو أنك مدحونها دولة فدرالك الصومالية waxaa hadda bilaaban doonta khudbada iyo hadal jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya go'aanka loogu mahadcelinayo waxaana khudbadaasi jeedin doona gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish sidoo kale geeska Ilyas oo geeska mid tahay codsi adeer waxay siko siko okay siko wali وماسكين صوماليا هذا إلك شو بقى شو ودي واقصوا الله بتنجي زكريا اوكي ما نافع هنا يسمع وحير ولي واقصوا الله بتنجي لا كامل صف الجيكا عصوا مريم علي صاحبك كبرك واجاك داوديال تلفزيون يونيفرسال ayaa nagala socotaan barnaamijka aysan hadda waxa hadlaya halka jeedin doona gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Cumar iyo madaxda kale ee gobolka Banaadir iyo ku xigeenada gudoomiyaha degmooyinka saxaafadda iyo ciidamada qalabka sida dadweynaha gobolka Banaadir baanda muusiga iyo barbaarta gaashaaman mudane gudoomiye waxa halkan diyaar ku ah shacabkii gobolka Banaadir hadda waxaad ka timid qayb ka mid ah qaybahaas qaybtii labaad hadda joogta laba qaybo kale way ku sii dhiman tahay barnaamijkan waa barnaamij shacabku soo abaabulay ayaga ayaa jeclaystay waxay daba joogaan kelimadii ka soo yeertay ee uu shala soo jeediyey oo codsiga aheeday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kelimadaas oo aheeday in shacabka ku nool Muqdisho oo helo matalaad oo ku qanco oo la mid ah matalaadda maamulada gobolada kaleeto wada gudoomiye madaxweynaha waxaa naga gaarsiinaysaa fariinta Muqdisho asaga ku dhashay xuduntiisa ku tuugan waa ku mahadsan yahay sidoo kale toobilo yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee ku dhiibada labada golana ka codsada in Muqdisho waxa ay mudan tahay la gaarsiiyo aad ayaan ugu faraxsanahay shacabka asaga soo abaabulay isaga yimiday Muqdisho madaxdeeduna ay ka maqnaan weysay adigu aad ka mid tahay soo dhawow mudane gudoomiye waqtiga oo kulayla awgeed waxaan jeclahay inaan kugu soo dhaweeyo iyo meelo kale oo ku sugaya inaan kugu soo dhaweeyo microfonka fadhiga kafalan mudane gudoomiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين قبل بنادر dadweynaha sharafta leh ee gobolka Banaadir shucuubta reer Muqdisho bahda meediyaha hay'adaha amniga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib dhammaanteen haddii aan nahay shucuubta ku nool gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho waxaa sharaf noo ah maantay inaan isugu soo baxno fagaaraha weyn ee daljirka Dahsoon iyadoo aan muujinayno taageeradeenna ku aadan codsigii madaxweynuhu u jeediyey labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha
door muuqda ayuu qaatay hadday ahaan lahayd waxqabadkiisii muddadii uu joogay iyo meesha maantay oo codsigiisa wakhtigii ku habboonaa oo meel fagaaraha uga jeediyey golaha baarlamaanka labada qab dadka magaaladan muqdisho iyo bulshada gobolka banaadir ayagoo ka turjumaya dareenkooda ku aadan taageerada madaxweynaha ee codsiga u jeediyey golaha baarlamaanka ayay maanta isugu soo baxeen dhowr goobood 4 goobood oo waaweyn oo ay ayagu go'aansadeen inay ku muujiyeen taageeradooda mudanayaal iyo marwooyin waan idinkaga mahad celinaynaa sida aad u muujinaysaan shucuurtiinna sida ay idin nuuxisay ay idin dhaqaajisay dareenkiinna u kicisay codsigii madaxweynuhu u jeediyey golayaasha baarlamaanka mar haddii shacabka gobolka banaadir uu dareenkiisa muujiyey madaxweynuhuna labada golo hortooda oo codsigiisii uga jeediyey golayaasha waxay u taallaa jawaabta arrintaasi golayaasha baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose arrintaas oo aan filayo in jawaab degdeg ah oo dhammaan bulshada gobolka banaadir ay ku farxaan inay ka imaan doonto waan hubaa golayaasha baarlamaanku ma aha damiir raawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada muqdisho malaayiinta ku nool halkan iyo sida ay ugu heegan yihiin garab istaagga dawladdooda baarlamaankooda amniga ka shaqaynta danta guud mar haddii ay iyagooba markhaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dawladnimada soomaaliya dhidhiba u aasinteeda waxaa iska cad oo insha allahu tacaala mar dhow aan rajaynayaa jawaabtii aad ku qanci lahaydeen inay ka timaado taasoo haddii aan la idmo matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare iyo maqaamka caasimadduba ay ku dheehan yihiin maqaamka caasimadda in la meeleeyo oo magaaladan caasimadda ahi ay hesho maqaamka ay leeyihiin caasimadaha adduunka waa mid laga sugaayey 20kii sanee dalka soo maray dawladihii jiray balse runtii ay si aad iyo aada u soo daahday waxaan aaminsanahay xilligaanu inay tahay xilligii ku habboonaa xilligii dawladda Soomaaliya ee hadda joogtaa
ay ku magac yeelan lahayd inay meelayso salayso matalaadii gobolka banaadir iyo maqaamkii muqdisho mudanayaal iyo marwooyin waan idinkaga mahad celinayaa mar kale sida aad u muujiseen taageeradiinna ku aadan codsiga madaxweynuhu u jeediya golayaasha waxaan idinkaga mahad celinayaa muujinta aad muujiseen shucuurtiinna iyo fahamka aad u leedihiin xuquuqda idinka maqan iyo inaad ku sugtaan cod iyo bannaanbax nabdeed oo aan lagu raadin rabshado iyo waxyaaba laga fiican yahay mar haddii aan xaqeenna muuqaalkeenna aan kula imaan karno meesha kuma jirto erayo aan munaasib ahayn iyo rabshado in lagu raadiyo xuquuqda balse waa wax mid aan aaminsanahay inay horumarka iyo dowladnimada dib u dhaqi karto taasi mar haddii dadka reer muqdisho ay yihiin marjicii ummadda soomaaliyeed ay dowladdoodii garab istaageen ay amnigii hay-adaha amniga kala shaqaynayaan ay nadaafaddii ka shaqaynayaan dib u dhiskii ay ka shaqaynayaan si midaysan ay ku leeyihiin golayaashow codsigeenna iyo codsiga madaxweynaha looga jawaaba waan hubaa inaan jawaabtaasi soo daahi karin waxay muujinaysaa tani sida ay uga go'an tahay reer muqdisho iyo reer banaadirba muujinta shucuurtooda iyo sidii ay ku heli lahaayeen xuquuqda ay tabayaan walaalayaal madaxweynaha iyo ciddii tala ku siisayba waan uga mahad celinayaa go'aankiisaas iyo codsigiisaas anigoo ku hadlaya magaciinna iyo magaca maamulka gobolka banaadir waxaan adigana idinkaga mahad celinayaa marar kale sida aad ugu dulqaadateen saaka aroortii ilaa wakhtigan muujinta dareenkiinna aadna ugu sabarteen ciriiriga iyo qorraxda waxaan idinka rajaynayaa si nabad ah oo nadiif ah oo dadnimo leh inaan magaaladeennan uga wada shaqayn doono idinkoo garab taagan maamulka gobolkiinna iyo hay-adaha amniga iyo wax walba oo horumar lagu gaarsiinayo magaaladan adigu aad leedihiin maadaama qorrax la taagan yahay ilaa saakana aad taagneedeen intaan ayaan uga baxayaa hadalkayga farriintii aad ii dhiibteen iyo codsigii madaxweynuhuba maanta wuxuu ag yaallaa labada gole ee baarlamaanka sida aan aaminsanahay aniguna jawaabta labada aqal ma soo daahi doonto waxaana ka imaanaya wax dhammaanteen aan ku faraxno haddii aan leedmo taasoo si wada jira aan u wada damaashaadi doonno mar kale mudanayaal iyo marwooyin waxaa noo ballana isku duubni waxaa noo ballana dareen wadaniyadeed waxaa noo ballana
bulsho nabada iyo beled nadiifa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu agagaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed oo la hadlayay dadkii maanta isugu soo banaabaxay magaalada muqdisho guud ahaan intaas ayaan ku joojinaynaa 70 tooska ahayd ee telefishinka Universal